hadda been ku sheegay siyaasadda hadda Axmed Madoobe iyo Dani waa ka soo horjeedaa laakiin saasay tahay marka hadda dastuurka ay noqoto dastuur sidiisu waa wax dhammaystiran oo bulshada ay qaybadeeda kala duwan hadda waxaa ognahay dastuurka marka la rabo in la dhammaystiro koow shacabka cod laga soo qaadaa laba baarlamaanka codeeyo saddex kadib xukuumadda wasiirada la hordhigaa marka ugu dambaysa madaxweynaha baalkiya anaga hadda ognahay dastuurkana looma keenin oo dadka shacabka ka doodaan lama dhihin waa ognahay baarlamaanka sidii oo xaaladiisa ay tahay saasay tahay haddana dastuurku waxaa leeyahay waa dastuur hal qayb u badan marka shacabka Soomaaliyeed ayadoo hadda Puntland maqan tahay oo Jubbaland maqan tahay oo Somaliland maqan tahay oo xitaa koonfur galbeed xataa dadkooda ay sarraale ka ahaan oo hadda maamulka hadda lafta garan oo gaabiyo waxaan kuma taageersano marka waa arin laga xun yahay dhilaan arintaaniga maxay tahay sababta dun iyo taageerayaashiisa imaaraadka yani ka marqaata kaliya ay u diidan yihiin dhamaystirka dastuurka horta imaaraadka horta ka amarqaa horta nimanka imaaraadka u shaqeeyo dani kaliya ma ahan waa badiin dani asiga hormuud u yahay rag kala jira oo imaaraadka ku xiran imaaraadna sidiisoo dadkii ninkii yaqaan imaaraad waa cadow sidiisoo meel oo joogana inuu kala qabo oo kala dardaro waa dabeecadiisa marka dadkaas imaaraadka u shaqeeya dani waxa ognahay in dad wiilal Soomaaliyeed Wagner Group oo ku daray oo Suudaan iyo dhulkaas lagu baabiyay in dahabkii dhamaay ee gobolka Sanaag iyo gobolka Bari oo gacanta u galay niman imaaraad ah soo dhaw wakaalad wararka dastuur dalka horta inuu yeesho waa arrin fiican laakiin muhiimadda waxay tahay horta dastuurka horta sidiisu muxuu yahay dastuur waa heshiis bulsho waxay bulshada ku heshiisay qaabka uu noolaa lahayd si isku xukumi lahayd si wax xukuma lahayd dastuurka hadda saa ognahay Soomaaliya hadda waa dhammaystiran leeyahay ma dhammaystirno oo soo ku dhammaystirneen raggii dalkii madaxda ka qaarkooda ka maqan marka taas marka waxay cadeynaysaa in dastuurkii aan loo dhameyn oo qolo gooniya oo macnaha ay qorato ayada dani waa nin dalkii dadkii in laga qabto u baahan laakiin saasay tahay arrinta marka dastuurka imaato dowladda federaalka aniga waa ka soo horjeedaa arrinta hadda ay samaysay arrin loo dhan yahay maahan wax Soomaali u dhan tahay fiican aad oo weyn